السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا جنال كيجا مركز السود وهذا أدي هذا ومحسنتين وأنا إذا كم هذا علينا لجوجتان كينا مدحوينها لدورتي جو بايدن أو لحمة الموت كدب حلك لوريجي اللواتن كبيش جانوري أيا وحى وكل واقعية قرشها ودوني إن دتك مريكان كيولي بدقالها دتك مريكان كلجو عاوية مدحوينها لدورتي جو بايدن أيا وحى حقيقي إن مهمة دي سكوبات وسينايو وحكا قبشة دقالها oo cuuriyamiyay cudurka coronavirus iyo wadiba sidii loo xakameyn lahaa cudurka coronavirus oo isaguna ilaa iyo sanadkii la soo dhaafay faraba aan ku hayay guud ahaanba dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay yihiin qodobada ugu horeeya uu doonayo inay wax ka qabtaan haddaba madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa waxa la filayaa inuu caawa ku dhawaaqo qorshaha uu doonayo inuu ku wajaho sidii wax uga qaban lahaa dhaqaalaha dalka Mareykanka isla markaana dadka Mareykanka loo caawin lahaa qorshahaas ayaa waxa ku jira sida wararku ay sheegayaan lacag 1.5 trilyan oo la doonayo in dadka Mareykanka lagu caawiyo lacagtii $2,000 ahayd oo horey loo hadalhayay 600 oo kamid ah dadku way qaateen waxana hadda dhiman $1,400 waxana xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha uu u weyn yahay ay u ololeynayeen sidii lacagtaasi $2,000 ah dadweynaha loo siin lahaa maadaama hadda labada aqalka hoose ee aqalka sare aqlabiyadiisa xisbiga dimuqraadiga ay leeyihiin waxa ay hadda ku dadaalayaan sidii lacagtaasi $1,400 marka madaxweynuhu xilka la wareego loo gudagali lahaa sidii dadka Mareykanka loo gaarsiin lahaa madaxweyne Donald Trump waa uu taageersanaa lacagta 2,000 laakiin waxa ka soo horjeeday xubnaha Republicanka oo markaasi aqlabiyada aqalka sanadka haystay laakiin hadda labada aqal waxa aqlabiyada haysta xisbiga dimuqraadiga kadib markii labadii xubnood ay ugu dambeysay ee gobolka Georgia ee aqalka sanadka ay ku guuleysteen maadaama konton ay labada xisbi kala leeyihiin boqolka xubnood ee sanadka madaxweyne ku xigeenka ayaa hadda waxa ay noqonaysaa madaxweynaha aqalka sanadka waxayna noqonaysaa qofka codka 51 iska leh marka sida ay hadda ay xisbiga dimuqraadigu ay labada aqalba hoggaankiisa ku hayaan marka madaxweynaha waxa hadda uu sheegay in lacagtaasi 1.5 trilyan uu doonayo in si degdeg ah aqalka Congress-ka ay ku ansixiyaan marka uu xilka la wareego si dadka Mareykanka loogu caawiyo madaxweynaha ayaa waxa uu xaqiijiyay in lacagtan ay tahay mid la doonayo in dadka Mareykanka lagu caawiyo oo lana dhameystiro lacagtii $2,000 ahayd oo 1,400 ka dhiman sida ugu dhaqsaha badan dadka lagu gaarsiiyo shaqalaanta wadanka ayaa hadda waxa ay gaartay 965 oo qof oo shaqalaan oo dad shaqalaan ayaa hadda wadanka ku sugan waxaana sidoo kale madaxweynuhu qoraal uu soo saaray habeennimadii xalay ahayd kadib markii aqalka hoose ay ansixiyeen qodobkii xilka qaadista madaxweyne Donald Trump oo bartiisa Facebook uu ku soo qoray aqalka hoose waxay ansixiyeen ayuu yiri qodobkii xilka qaadista madaxweyne Donald Trump oo ahayd in madaxweynaha la xisaabtamo iyadoo waliba labada xisbiba ay u codeeyeen marka wuxuu yiri mas'uuliyadooda dastuuriga waaye aqalka sanadka oo hadda qodobkaasi loo gudbinayo in ay maareeyaan mas'uuliyadooda dastuuriga isla markaana ay maareeyaan sidoo kale qodobkan xilka qaadista ee la hordhigayo iyo sidoo kale danaha muhiimka ah ee dalka oo hor yaalo oo ay kamid tahay in golaha wasiirada ee madaxweynaha uu soo magacaabay ay ansixiyaan markuu wuxuu aqalka sanadka iyaga ayaa laga rabaa mas'uuliyadooda dastuuriga inay isticmaalaan oo ay kala maareeyaan qodobkan xilka qaadista iyo sidoo kale ansixinta howlaha muhiimka ah oo wadanku u baahan yahay oo kamid yihiin madaxweynuhu golaha wasiirada uu soo magacaabay sidii ay u ansixin lahaayeen sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu yiri waxa loo baahan yahay in balaayiin $1 lagu bixiyo sidii wax looga qaban lahaa ayuu yiri qaybinta talaalka wadanka oo in wadanka talaalkiisa la qaybiyo ayaa waxa yiri inay muhiim tahay sidoo kalena waxa yiri waa in gobolada iyo dawladaha hoose lacag la siyaasi aysan shaqalaan aysan ugu dhicin macallimiinta booliska iyo waliba shaqaalaha caafimaadka waxana uu sheegay madaxweynaha sidoo kale in loo baahan yahay sidoo kale lacag balaayiin $1 lagu bixiyo sidii iskuulada wadanka dib loogu furi lahaa sidoo kalena la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad oo madaxweynaha uu magacaabay ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu ku boorinayo Congress-ka in sida ugu dhaqsaha badan ama uu ku cadaadinayo sida ugu dhaqsaha badan inay ku ansixiyaan lacagtan uu doonayo in dadka Mareykanka lagu caawiyo marka madaxweynaha cusub waa ay ka go'an tahay sidii dadka Mareykanka loo caawin lahaa waxaana la filayaa qorshihiisa oo dhaqaalaha wadanka sidii wax ugu qaban lahaa iyo dadka loo caawin lahaa inuu caawa ku dhawaaqo isla markaana uu soo bandhigo wararka qaar ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in qorshaha madaxweyne Biden uu doonayo in dadka Mareykanka uu ku caawiyo qorshaha lacagtiisu ay gaarayso ilaa iyo 1.9 trilyan marka lacagta madaxweynuhu uu doonayo waxay u dhaxaysaa 1.5 trilyan ilaa iyo 1.9 trilyan sida wararka ay sheegayaan waxaana la filayaa madaxweynaha in qorshihiisa uu caawa ku dhawaaqo uu doonayo dadka Mareykanka inuu ka caawiyo waana dhameystirka lacagtii $2,000 ahayd oo hadda 600 oo kamid ah dadka ay qaataan in la gaarsiiyo ilaa iyo 2,400 ay u harsanna dadka Mareykanka la soo gaarsiiyo maadaama ay si aad ah ay ugu baahan yihiin
sidoo kalena wixii ka dambeeyay weerarkii taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay ku qaadeen aqalka Congress-ka ee Capitol Hill oo ku yaala caasimadda DC 6 bishan waxa soo baxay isbedelo badan oo lagu sameeyay qaabka wax looga qaban karo ammaanka aqalka Congress-ka hadda darbi ayaa lagu wareejiyay ilaa iyo 8 ilaa iyo 7 fiid ah waxa jooga ilaa iyo 20,000 oo ciidamada ilaalada qaranka waxay ka badan yihiin ciidamada hadda aqalka Capitol Hill jooga marka la isku daro ciidamada Mareykanka ee jooga Iraq iyo Afghanistan iyo Syria waxa ka badan kuwa hadda aqalka Capitol Hill jooga marka afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa waxa ay ku dhawaaqday tilaabooyin loo baahan yahay in la qaado si ammaanka loo sugo hadda waxa aqalka Capitol Hill irdaha laga soo gala la dhigay qalabka ogaada qofku inuu bir wato iyo in kale waxana Nancy Pelosi ay sheegtay ay ku dhawaaqday in uu jiro qaraar la soo saaray oo ah in dhammaanba xubnaha baarlamaanka ama Congress-ku ay soo dhaxmaraan qalabkaasi lagu baarayo si ay u ogaadaan inuu bir wataan iyo in kale isla markaana qofkii ku xadgudba oo diida in la baaro oo soo dhinac mara qalabkaasi lagu baarayo xildhibaanada in la ganaaxi doono waxa ay xaqiijisay in marka hore haddii uu diido $5,000 la ganaaxi doono marka labaadna $10,000 la ganaaxi doono mushaarkiisana laga jari doono xubintii ku adkaysata in amarkaasi ay u hoggaansami wayso Nancy Pelosi waxa ay sheegtay in 22 bishan marka Congress-ku uu kulankiisa ku soo laabto la sharciyeyn doono tilaabooyinkaasi laga maarmaanka ah waxaana qalabkaasi hadda la geliyay dhammaanba irdaha laga soo galo aqalka Congress-ka iyadoo sidoo kalena intaasi ku dartay waxay tiri waa arrin naxdin leh in ay laga maarmaan noqoto ay tiri in aqalkii Congress-ka oo ah aqalkii dadweynaha in la isku baaro laakiin waa laga maarmaan si ammaanka xubnaha baarlamaanka loo sugo waxa sidoo kale jira amar kale oo lagu soo rogay xubnaha aqalka Congress-ku ah inay maskaraati xirtaan kadib markii 3 xubnood oo ka tirsan aqalka hoose ee dalka Mareykanka uu ku dhacay cudurka coronavirus-ka kadib markii 6 bishii xubnaha aqalka Congress-ka la isugu geeyay meel ciriiri ah oo ammaankooda lagu sugayay xildhibaanada Republican-ka ee ku jiray aqalka hoose ay diideen inay maskaraati xirtaan ayaa 3 xubnood oo ka tirsan aqalka hoose cudurka coronavirus-ka ku dhacay marka Nancy Pelosi waxa ay sheegtay in xubin ka tirsan Congress-ka uu haddii uu diido inuu xirto maskaraati marka hore la ganaaxi doono lacag $500 marka labaad haddii uu diidana sidoo kale lacag $2,500 la ganaaxi doono marka tilaabooyinkan waa tilaabo la soo rogay kadib weerarkii Arbacadii la soo dhaafay 6 bisha taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay ku qaadeen aqalka Congress-ka iyadoo sheegtay in tilaabooyinkan ay yihiin kuwa la doonayo in la dhaqan geliyo xubintii ku xadgudubtana tilaabo laga qaadi doono arrintan ayaa sidoo kale soo baxday kadib markii xildhibaanada laga soo doorto Colorado oo la yiraahdo Lauren Boebert oo iyadu u ololeynaysa in xubnaha baarlamaanka ay qori la yimaadaan aqalka Congress-ka ay diiday in la baaro isla markaana sidoo kale ciidamada ammaanka ay u diiday in boorso ay wadatay la baaro sidoo kalena xubin kale oo ka tirsan Congress-ka gaar ahaan aqalka hoose oo laga soo doorto Arkansas oo lagu magacaabo Steve Wamog ayaa isaguna waxa uu diiday maalintii Arbacada ahayd in la baaro waxaana askarigii baarayay oo u sheegay in uusan u soo dhawaanin isla markaana uusan taabanin arrintaasi marka ayaa waxay sababtay in tilaabooyinkan laga maarmaanka la qaado si ammaanka xubnaha aqalka Congress-ka loo sugo dhinaca kalena arrimaha cudurka coronavirus-ka haddii aan eego khuburo iyo saynis yahano dalkan Mareykanka u dhashay ayaa waxay xaqiijiyeen in la helay 3 nooc oo cudurka coronavirus-ka oo wadankan gudihiisa ku dhashay isla markaana ku barbaaray waxaana ay xaqiijiyeen in kiisaska hadda wadanka laga helayo 50% loo maleynayo in ay ka dhasheen noocyada cusub ee cudurka coronavirus-ka ee wadankan laga helay nooc ka mid ah noocyadan cusub ee cudurka coronavirus-ka ayaa waxaa heshay jaamacad ku taala gobolka Illinois halka sidoo kale nooc kale oo lagu magacaabo 20C-US laga helay gobolka Texas bishii May ee sanadkii 2020 ee dhamaaday waxaana hadda khubaradu ay leeyihiin inay jiraan noocyo badan oo cudurka coronavirus-ka oo wadankan gudihiisa ku dhashay shirkadaha Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale waxay sheegeen in talaaladooda ay ku tijaabinayaan in noocyadan cusub ee cudurka coronavirus-ka ay talaalkoodu ka difaaci karo dadka tijaabano asina inay wadaan hadda sidoo kale guud ahaan gobolada dalka Mareykanka waxa loo qaybiyay in ka badan 30 milyan oo talaalka cudurka coronavirus-ka waxaana dadka la talaalay hadda kor u dhaafeen ilaa iyo 11 milyan oo qof waxa hadda wararku ay sheegayaan labadii toddobaad ee ugu dambeysay in ka badan 38,000 ay cudurka coronavirus-ka ay wadanka ugu dhinteen hay'adda CDC-na waxa ay sheegtay in 29,000 oo dheeraad ay dhiman karaan 3 toddobaad ee soo socota taasi oo tirada dadka cudurka ugu geeriyooday wadankan ku dhaweynaysa 385,000 waxaana sidoo kale daraasad cusub ay muujinaysaa in marka la gaadho 6 bisha February 477,000 oo qof cudurka coronavirus-ka uu wadankan ku dili karo iyadoo sidoo kalena toddobaadkii ugu dambeeyay heerka dhimashadu 10% uu sare u kacay gobolada dalka Mareykanka isla markaana maalmihii ugu dambeeyay in ka badan 4,000 oo qof maalin kasta ay wadanka cudurka coronavirus-ka ay ugu dhimanayeen
hay'adda CDC waxa ay sheegtay in xaaladda waddanka ee cudurka coronavirus-ka hadda ay gaartay meeshii ugu xumeyd isla markaana sidoo kale ay ka sii dari doonto bilaha soo socda taasi oo khatarta cudurka coronavirus-ka ay muujinayso weli waddankan in ay si aad ah u sarreyso aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodkiina waa idinka mahad celinayaa fadlan subscribe sar cilmi waara media gambalaalkana furo si aad u hesho warbixinada aan mustaqbalka soo geliyo haddii aad leedma asxaabtaadna la wadaagsi uga faa'iidaystaan sida adiguba aad uga faa'iidaysatay like t-shirt iyo commentigana sidoo kale hanaga ilmaamin intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waara oo idin la sidaa iyo nabadgelyo